Munira Foundation oo barnaamij labadan bari jeexday oo dhibaatada iyo dhibka ka jira deegaanka ka hadashay marka waxaan leeyahay dadka qaar oo qabiil ahaan u hadlaya ama raba inay aflagaadeeyaan Mama Munira iyo dadka maanta isheysta oo dhammaan gobolka Shabeellaha Hoose ka soo jeeda marka waxaan rabaa inaan ugu diga dadka raba inay afka la soo galaan Mama Munira waxaan leeyahay ka fiirsada Mama Munira waa tii u soo halgantay fatahaada degmada Afgooye waa tii maanta ka qayb qaadatay fatahaada degmada Afgooye waa tii maanta u istaagtay inay ka qayb qaadato degmada Afgooye maanta waa qoftii akoonka degmada Afgooye wax badan ka qabatay marka hadal iyo dhamaantiisa marka ay lacagta dhiibeyso Mama Munira Foundation soo dhiibtay afgaladi iyo afmaamay iyo dad may arti dhahay inay keenaan oo afkeeda ku soo amaano maalintay runta ka hadashana in la soo aflagaadeeyo waa ceeb dadka dhammaan uu sheegaya marka gooni uma wici karo waxaan rabaa bini'aadanka la shukr ala waajib wax walba waajibka ah qofka waa inuu ka hadlaa waxa jiro runta waa in la isku sheega waxa in la kala qaada fiican yaa la isku qasin xaar iyo kaadi in la isku qasaba fiicno markaad wax ay ku siinaysan Mama Munira fight nabadayn waa ma santina daadid kliibyada waa hayna marka barnaamijkaas uu bilowday soo ku dhamaaday waa ognahay intii hore oo la socotay barnaamijka intaas aan rabaa inaan saakay barnaamijka aan rabaa inaan xoogaayar ugu taataabto intaan fahansaneen barito haduu Ilaahay idmo waxaan ku dadaali doonaa in aan soo galo aan ka qayb qaato barnaamijkan wixii jira iyo wixii kala faahfaahinta ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto dhan aan u gudbiyo tan kala aan raba inaan ka hadlo waxay tahay Mama Munira iyo dhammaan gaashaanbuurta iyo xaqsoor iyo inta guddiga ah iyo xisbiga amni iyo cadaalad oo ka qayb qaadatay akoonka sameyntiisa iyo ra'yigaas iyo wax qabadka deegaanka degmada Afgooye dhammaan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin dadaalkiina iyo waxtarkiina iyo wax qabadkiina haddana akhyaar ayaan sugeynaa haduu alla idmo ina intaan akhyaartaasi akhbaar aan ka helayna ilaa iyo haween dambe wixii ka dambeeya haddii tilaabo la qaadi waayo waxa wixii go'aan anaga naga suurto waa inaan sameyn doonaa waayo nabad la tuutuugin nabad ma naga daaw miriflo waxay dhahdaa hirow hartime ee hoobala ka heesaa maahin hirow hartime ee hoobala ka heesaa maahin marka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed deegaanka degmada Afgooye maanta looguma gurman qabiil looguma gurmanin dhinacaan kale ana reer Shambaco iyo ana reer Shukulaati waxa loogu gurmaday maanta degmada Afgooye yaa Soomaali ayaa loogu gurmaday maanta dhibaatada deegaankaas ka dhacday dadka Soomaaliyeed oo dhan u danqaday yaa la isku lifaaqin yaa la qabiilaynin bahasha nin walbo deegaankaasi gurmaday nin walbo fatahaadaasi ka qayb qaatay waa in mahad gaar loo celiyaa dadkana markay wax ku siinayaan shukri ina dhahdid markay cabasho ay soo gudbiyaan in la aflagaadeeyo xoogaa waa ceeb bahashiyan la qabiilaynin ummadda gobolka Shabeellaha Hoose ama koonfur galbeed ka soo jeedo waa ummad walaalo ah ummad hooyo iyo aabba isku ah waa ummad wada dhashay waa ummad iska war hayso oo mar walbana jecel inay wax isku qabtaan inkastoo ay odayaashii kala furfurayaan laakiinse dhalinyarta iyo hadda dadka soo baxay qurba joogta iyo dadka qaar oo deegaanka joogo oo dhiiga lah damiirka leh waxay diyaar u yihiin ummadda maanta in wax loo qabto ummadda maanta u istaagta in wax loo qabto Soomaalinimada deegaannimada gobol ahaan in la aflagaadeeyo waa ceeb laakiinse tilaab walbo dhacdo wax walbo dhaco aniga walaalkaygu haduu yahay iyo haduu saaxiibkaygu yahay haduu shilin musuq maasuq jira shaaracana la keenaya ninka nagu jeclaan lahaa iyo ninka nagu nici lahaa haddii ragga musuq maasuq sameynaayo marka qof walba qofka raba ha ahaado deegaan walba ha ka soo jeedo qofka raba ha ahaado maanta qof bini'aadan aan la eedi karin malahan musuq maasuqa sameysay ama dhibaata dhacday ama cabasha dhacday waa lagu soo caban karaa haddaad cabashada diidid waxaa tahay tuug qofka cabashada diido waa tuugna waa in la iska qabay koonkan waa abuuray laakiin waa awooday inuu ummadda dhan islaamka hadda waxaa joogo intaasoo diin intaasoo firqiya joogto okay ilaahay waa awoodaa inuu dhulka la gadiyo
laakiinse wuxuu leeyahay bini aadan waa bariyayso toobad keenayaan laakiin ilaahay asoo saas ay tahay rasuulow keenay marka inay bini aadanka wax loo sheego qof walbo waxay waa sheegi karaa qof walba waa hadli karaa rasuulkii ilaahay keenay soo dejiyey oo waxyada u keenayay ayaa bini aadanka inay ku caasiyeen dhagaxeeyeen dakhreen oo walaayada waday laakiinse adigoo bini aadan ah oo rasuul ahayn oo mas-uul bini aadan ah u tahay haddii maanta lagu eedo hadhihin layma eedi karo hadhihin wax laygama sheegi karo walaalka ku jecelaa ku eedaayo walaalka ku jecelaa wax kuu sheegaayo walaalayaasha meel walba joogtiin waa idin salaamayaa dhammaan xaqsoor iyo gaashaanbuurta iyo maama muniira dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogtiin waa mahadsantihiin sida aa ugu dhindhiseen barnaamijka anigana inaan soo hadlo barnaamijka si fiican aan u faahfaahiyay waa rabay laakiinse odayaalaa soo dhex galay odayaashaasaan ka war sugeynaa odayaashaas in aan ka war sugnaan jecelnahay saaxiib geel oo ku jeedaa insha allah odayaashaas inaan ka war sugnaan jecelnahay laakiinse odayaasha haddaan jawaab ka waayno yaan lees eedin wax walbaan ognahay banaankaana la keenaa halaha maama muniira ay sheegtay waa sheegtay laakiin wax kale kasii badanaa jira maama muniira deegaanka afgooy uma dhalan laakiin gobolka ay u dhalatay laakiin wixii akhbaar ah ummad ayaa u soo gudbiso ummad soomaaliyeed ummad gobolka ka soo jeedo laakiin anaga waan ka dhalanay haween iyo maalina ehelkeena iyo familkeena dhex jooga ma rabni wax bini aadan lagu dulmaayo ma rabno wax musuq maasuq ah waxaan rabnaa maanta in horumarka deegaanka laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeed say u dhan tahay waa la wada degan yahay inkastoo la kala leeyahay deegaanka marka qof in uu ka qaato dhismaha deegaanka iyo waxqabadka laakiinse markuu qofku wax qabto yaan lagu hala qaban markuu rabo qofka hami uu leeyahay yaan la niyadi yaan laga dilin ummadda soomaaliyeed meel walba joogtiin waxaan idin leeyahay subax wanaagsan oo jimco ah tan kale aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxay tahay cali benziin iyo aamino shaxaad iyo aamino magaceeda kale iisoo xasuusiyaa aamino maxaan ugu daraa ii sheegbo magaceeda kale muxuu ahaa cali benziin cali xamaali cali maxaa la dhihi jiri aamino maxaa loogu dari jiray cornel oo salaama horta xildhibaanadan kale aamino oo meeshaan hadda noo fadhisa kursiga iyo cali benziin waxaan ognahay in deegaanka ayna tegin ilaa iyo hadda laa shukri calaa waajib qof walba wax qabtana in loogu mahad celiyo waayo barnaamijka labaad aan raba inaan ka hadlo maalmaha soo socda caawo beri ilaa iyo galabta waqtiga aan jaanis helo waa daruuri inaan ka hadlo tan labaad inaan ka hadlo waxay tahay cali iyo aamino deegaanka waxay u qabteen waa la ogyahay intay la gooyeen waa la ogyahay inta madaxooda loo dilay waan ognahay ummadda soomaaliyeed khaasatan degmada afgooy inta xildhibaanada dartooda u maqan oo god ugu jirto maanta waa la ogyahay maanta cali waxaan arkaya in ciidamada badan uu maanta isku soo sawiray oo boliis ah ciidamadaasna maanta isku soo sawirka oo isku soo sawiray asiga faan u maleeyaa laakiin faan ma ahan ciidan aan deegaankooda darees wadan ciidan aan qori la siin ciidan aan dhuumanaayo ciidan boliis ah bud xataa aan loo dhiibin ciidan meel ay ka tirsanaan lahayn ciidan maanta markay deegaanka galayaan camaamad wajiga saaranayay ayuu isku soo sawiray social media keenay cali waxaan leeyahay maanta tilaab walboo dhacdo ama qof walboo maanta deegaankaas lagu dhibaateeyo aamina niirko waa soo laabanaa marka cali nin walboo deegaankaas lagu dhibaateeyo nin walboo deegaankaas wax lagu yeelo ama cunug walboo meesha soo sawirtay oo fal loo geysto waxaa adaa ka mas-uul ah waayo waxaan ognahay dadkii maanta deegaanka lagu dilay ama dadkii deegaanka maanta dhibaatada lagu gaarsiiyey hal ka mid ee maanta tacsiir inaad u bixis iska daaya waalidkiisa alaa u naxariista waa dhihi ways isla weynada kugu jirto laakiinse waxaad is leedahay kaambeenku soo gal dadkan waxaad is leedahay ummaddan ku oorkacso haddaad is leedahay waad soo laaban doontaa riyaad ku jirtaa riyada imaankaaga allah ku geliyo dhalinyarta aad is leedahay waxaan u diyaarsanaa ama aad liiska aad qoranaysid oo dadka aad qoranaysid oo deegaanka u dhalan
arabtid inay kusoo doortaan ma kusoo dooran karaan anaga dhanaa musharaxiin ah ana waa soo socdaa musharaxa ahay korneel geeli musharax waaye cali boore musharax waaye musharaxiin kale Soomaaliya kula joogaan hebel iyo hebel ma ku dhahay laakiinse argada la keenayo waxa noo balan ah arga walba meesha uu kusoo jeeday iyo familkiisa inaan weydino haddaad is leedahay magac faalsi ee qora keenso haddaad is leedahay nabadoon tuuga caada qaata ah keenso haddaad is leedahay nabadoon bug ah samaysa adi iyo Aamina Niiko taas wax aan yeeli karna mana niga qaadan doono taasi waa laga daba imaana marne ma u dul qaadan doono in barnaamij been abuur ah ama barnaamij fake ah ama guddi arga aan deegaanka u dhalan keentid wallahi taas doorashada wiligeed ay dhicin kursiga lagu waayo Aamina Niiko oo ilaa ay hadda barnaamijka ciidamada dhalinyarta ka daba wareegata rabta inay arga ka dhigato waxaan leeyahay ka fiirso labadiinaba waa la nigu qasaaray maalintii labadiina la niigeynay in la dhahaa fiicnad kursigan dad ma lehe hay iska sii yaalo dood iyo dacwada hay socotay asii socotay Aamina waxaa dhahday 45 kuna iga baxday markaan kursigan imaanay Aamina maxaa ka baxay argadaadi waa ognahay soo caday inta ka baxday soo caday yaa siisay sheeg dhiila la galay dhiilka la galay waa lagu 4-5 oo ha shariif kala la galay tan isiid kana qaadana khalaas automatic oo soo baxday barnaamijka isla ogeyn oo ahaa ma Muniir iyo dadka qaar aleena ani 45 kun waa ka kooy ma Muniir afkaaga Allah kuna qaafar 45 kun deegaankaas galleed qaabkiisaas ma waxa laha dadkii shacabkiisaas ma u bahdilna laha 45 kun qof ka soo bixis ma ogtahay isbitaal aan dhaqi jirtay iimaanka Allah ku galshaa kule laakiin tan hadda aan yeeshanoosin inaad arga faalsa qoratiin inaad nabadoono bug samaysin taas mida yeeli doono maahan mana u dul qaadan doono deegaankaasi dadkiisa way soo jeedaan wayna diyaar inay imaadaan kuraastooda oo soo sharxaan laakiinse riyada iqarowga ku jirtiin waxaan leeyahay iska dhaafa iimaankiin Allah idin galiyo deegaanka dada u soo jeestay haween iyo maalin u fadhiyo wixii dhici rabay iyo wixii kale og ma gaari kartiin gabadhan fahiimo la dhahayo oo hadda wasiiradda naqatay Baydhabo tagtay oo hadda lacagtay soo aruurisay ku wareejisay guddigan hadda la heesto la isku dhagan yahay lacagta ku wareejisay maxay dhaantiin lacagtii Xaniif Xabsada haysay ka soo qaadi laadin deegaankiina tagi laadihiine ya Aamino hormoonka ba kugu yaray awoodda ma kugu yaray waxtarka ma kugu laha ma kugu yaray markaad hadda markii xildhibaan aan qatileeb dadkii aan ka ordeen noo guursatay awal nin la ama ku haysi nin le ma uraasatay xildhibaannimada waa yaawani xildhibaannimada nin le ma u doonatay inaad ku raasatid taasi waa laga fiicnaa ceeb baa ka dhacday meeshii war dadka deegaanka heesto dadka dhibaatada ku wahayo dadka adiga beerta walaalkaaga haasto walaashaada heesto la rabay inaad iska riixdid aad dabada la gashay xaraam calee wallahi ma kugu habbooneen taas inaad samaysid video weyn oo kusoo gaari doonaa ka fiirso afgooy weli biyiya ku jiro fatahaadii hore $1,500 aad dhiibtay waxaad ku cuntay $1,500 35 kun aad ku cuntay video على صدوبه جودي على صدوبه برنامج على صدوبه لوخ على صديقه ودن كأمين ملء أني أمينة ملائكة هاي كنا هاي نلا بكدانة تبع لندن نم جوجينو سومالي نم كده مادي ننتل كملواي تيجي الإيمان في الدين مكوايسي no يا خسارة والله جو خسارة والله خسارة نقول عادي وأنا كشلايني وايو انت درت هذا لو دي لان دوين نفس الداري حراه دارتي انها كبد باستي ور لندن كاغي اسكي ما اسبيتال كاغي اسكي حاق لاكس ان حد من راستي لعقتي او فتهاد دقمده افغوين ان كراستي ما كلفي تاس عيبي كوغو نقتي امينه تاس عيبي كوغو نقتي ورنيمو ما بوحان حتى ورر هوس يسو غارو يا جيرو
ninka ma heysata waa iska waa aroos lay dhahdaa la dhahaa marka xoogaa waxaas dhan waa laga fiican yahay war nin waa la guursadaa laakiin ummadaadii wax baa loo qabtaa laakiin ninkaa guursatay deegaankiisa wax ka qabataa wallahi horaa loo sheegay xabad caana gale xisaab male inkastoo naagaha ay kala fiican yihiin fahiima aadan gaareen amaanna igama ah fahiima ilaa hadda waxtarkeeda ma arkin laakiinse dhaqdhaqaaqeeda iyo barnaamijyada iyo waxyaalaha ay samaynayso waa wax i cajibiyey dhaqdhaqaaqa iyo kulanka iyo waraysiga iyo deegaanka sida ay uga hadlayso laakiinse adiga iyo cali benziin caligaan meesha iska fadhiyo habeen walba rabo naag inuu la fadhiisto war ummadii oo caliyow iimaanka ilaah ku geliyo iimaanka allah ku geliyo waxaad dhahdaa hebel aa laluusiyaa waxaad dhahdaa waxaan qabtaa waa booteesaa lacagaa inta dhinacayaasha iga daadsan haddaay wax walba awoodid deegaankaagin hal mar waa tagay laada ani kursiga halee faaro aniga halee ololeeyo meeqaa lagu ololeeyay kursiga waa lagu riixi waa lagu geey maxaa samays maxaa qabatay deegaankaagi maxaa u tartay maxaa taraa maxaa tahay he sheeg yaa nin ku tilmaamaa yaa naag ku tilmaamaa marka yaa laga roon lagu tilmaamaa marka waxaan leeyahay arrimahan iyo arrimooyin kale aan barnaamijkaas waa hordhac subaxdii dad badan ma soo jeedo waxaan ku soo galay saacaddan hadallada iyo koolalka say ugu badanin laakiinse digniin waxaan siinayay guddigan dhammaan aan walaalaha nahay oo barnaamijka akoonka aan kala soo shaqaynay oo fatahaadda ka qayb qaatay in barnaamijka odayaal ay ku jiraan barnaamijka candhuuftiina gadaal celiya ilaa iyo haween dambe barnaamijkan aan ka warsugi doono iyo xildhibaanada barnaamijkoodu faahfaahsan waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay idmo berito ama galabtii ama haween dambe haddii kale maamuniir iyo dad kalea soo geli doono marka waxaan leeyahay deegaanka waxa tar ayuu u baahan yahay waktigii gawaabsi waaye dadka argada faalsada iyo nabadoon faalsada qoran rabon waxaan leeyahay ka fiirsada dadka kale marka yaa qowmii loo aruurinayo qabiil meel ma ku geyn karo laf kali meel ma ku geyn karto deegaanka waa la wada leeyahay waana la wada degan yahay deegaanka waa la wada leeyahay waa la wada degan yahay cunuga yar cudow ku leeyahay cunuga yar deegaanka joogo cudow ku leeyahay kan ka maqan iyo kan joogo wax matare waaye ma nagu soo laaban doona hadduu alla idmo waa imaadeen afgooye inta dhul ay dawladda ku shaqayn jirtay oo la googoostay la gatay magaama maxaa keenay carab diyaanaa gatay carab fulaanaa gatay carab haddou garab haysto ibraahim carab deegaanka degmada afgooye guddoomiyihiisa ah haddou garab haysto xildhibaan haysto maanta waxbuu ku qaban lahaa dalaad xabiibaa la bedelay carabaa breshar lasoo saaray wax waad ka qaban weyseen caada qaatayaal dadkood u darnayaal londonaa ka soo baxdeen ilmihiin london ay nii joogaan murtaaxatiin hoteelaa jiiftiin waardiyaa haysatiin miya no qofka bini aadanka waxaa loo baahan yahay waxqabadkiisa haddoonu wax qaban karin meesha inuu iska casilo laakiinse carab ibraahim carab waxa uu sameeyey dadka dhan way ku eedeeyeen waana eedaysane waayo haddaan ani ahaan lahaa bedel la dhihi lahaa hebel bedel deegaanka u dhashtay qof kale hiirshabeel u dhashtay iigey lafti gareen naagtiisa ay soo wacday mursal naagtiisa ay soo wacday lafti gareen walaalkiisa xabaad le kankanaa no haddii kale waa lagu xiraa beedha waa lagu geeya war kursigaan social media qabaha waa qabanaa shir jiraayidaan qabanaa arrintaanaa jirto deegaankeygina dan u qaadi karo kursigana waa ka degay carabtaas oo ahaa inuu sameeyo shir jiraayidaan qabanaa kursigaan waa ka degaa dadkaan u hayay waa ugu degaa waayo kursiga beelaa ku fadhisaa been waaye beel uguma fadhiya daadhees beelaa ku fadhisaa kursiga ibraahim carab beel haddaadan ugu fadhin maada beelaha kale may imaadaan adaa iideeda imaaday xaajgaaw waa imaaday mayow barafaa imaaday waxaa imaaday magaciisa cabdiqaniyaa imaaday cabdinaasiraa imaaday carab adaa ku xigtay adigii waa baabaysa deegaanka hebel bedel waa bedesh okay iscasil ya hadda ii damba haddaad samaysa haddaad samaynin laguma dhaafeen laakiinse hadday gabada kaa soo riixi lahaayeen saan ma ahaateen sheekada suldaanna waxaan dhihi lahaa suldaan haddaad tahay deegaankaagii wax u qabo ama ma ahan maho banaanka ka istaag suldaanaad tahay madaxweyne koonfur galbeed ma ku ixtiraamo suldaanaad tahay meel lagaa ixtiraamsan yahay male
suldaanaad tahay amarkaaga gadoomiye degma ku socdo suldaanaad tahay xildhibaan waxaad u sheegi kartid male suldaanaad tahay maanta dhibaataa ku jirtaa suldaanaad tahay gurigaaga ma joogtid suldaanka waxaan leeyahay marka arrintaani wax ka bedel arrinta aa ku jirtid riyada aa ku jirtid wax ka bedel sida loo hadlo baro ma hadli karta afayeen keenso afayeenka suldaanka la dhaho oo ku hadla speaker caalamka siyaasaa jirto speakerka suldaanka keensa warqad haloo qor haloo dhiibo afka suldaanka ku hadlaay xishoonays ama aadiida sabirkaaga in la arko war ummadda deegaanka waxa loo qabto mas-uuliyaddaa qaateen aakhiri adduun waan igula xisaabtami doonaa waan idin salaamaa kheyraa idin rajaynaa waa inuu mar kale hadduu ilaahay idmo hadduu waagi noo baryay jumc wanaagsan idin leeyahay waan idin salaamaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxaan igu soo gabagabaynaa marka heestaan aan kusoo khatimaynaa marka cornelo waa ku salaama meeshan aan sii baxaa hadduu ilaahay idmo hadalka meesha muku haka doono hadalka waa sii soco doonaa hadduu ilaahay idmo laakiinse waxa waaye waxaan ballan nigaga qaadaa xasan goyle arooskeeda ayaa laga qaaday heestan aroos looma dhigin walaalkay aroos looma dhigin xataa koob gaxo ma lacabin wallaahi waa waalan tahay wallahi haddii aroos loo dhiga lahay ummadda afgooya joogtaa xoogaa ka qayb gal laheyd bariiska cuni laheede malodhiine waana ku salaamaa saaxiibkayga qaaliga aad iyo aad aa ubaasantahay barnaamijkan waa socon doonaa hadduu ilaahay idmo laakiinse waxa waaye barnaamijkan muhiimadiisa hadda aan rabno waxay tahay akoonka guddigiisa barnaamijkiisa waa lagu jiraa odayaalaha ku jiro asxaabta xaqsoor gaashaanbuurta dhammaan iyo qurbo joogta iyo dadka b b g ku jirabo waxaan leeyahay barnaamijkan la joojinaa ilaa iyo haween dambe akoonka waxaan ku balansan lahay in la soo celiyo guddi lagu wareejiyo guddigaas lala xisaabtami karo guddi in lagu wareejiyo guddigaas lala xisaabtami karo wixii ka dambeeyo haddii guddigaas akoonka ummadda loo dhiibay lacagta la geliyey ay diidaan waxaan ka dhehi lahayn markaasaa ka dhehayna hadduu ilaahay idmo beritaan jawaab helaynaa waan idin salaamaa beritaan dhowaya kistaan weli seexanin waaye galabtaan jawaab helaynaa waan idin salaamaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cornele waa kusoo qabanaa